xeerka marka qoyska xeerka qoyska muslimka ah qoys waxaa la yidhaahdaa zawj iyo zawjo wiil iyo inan gabadh isguursada oo guur ku heshiiyaa la yidhaahdaa waa hulada waa 2% fokeed in la yidhaahdo laba ninna way isguursan karaan laba gabdhoodna way isguursan karaan dad leh baa jira dad saas dhahayaa jira dad waxaa jira leh gabadhnamaba jirtaba wiilnama jirto qof walba wuxuu dooru noqon karaa adduunyadan aan joogno waxay maraysaa xilligii nebi maxamed la soo diray oo kale runtaan idiin sheegayaa fasaad kasta uu dhacay xumaantu ay bannaanka u soo baxday xaqiiqadu ay qarsoontay oo cadaalad aysan jirin oo miisaan uusan jirin ayaa nebi maxamed la soo diray calayhi salaatu wasalaam ilaahay nebi maxamed buu koonkan ku hagaajiyey maanta waxaan maraynaa in basaska aan raacno hala isxidho haddii la rabo in la sheegi basaska aan raacayno iyo meelaha iskaadka uu naga soo galo in lagu qoro la yidhaahdo wiil wax la yidhahdana ma jiro gabar wax la yidhahdana ma jiro qof walba wuxuu doono wey in canshuurtii aan bixinaynay lagu dhigo wuxuusan ilaahay iyo rasuulkiisa raalli ka ahayn maxaa loo baahan yahay marka adduunku weligii waxaa ka jiri jiray isku dhac adiga inaad waxaada barato hadhihin meeshaydii maaha inaad tiraahdo naay marka guur waxaa la yidhahdaa marka guur laga hadlayo waa lamaane waa wiil iyo gabadh isguursaday baa guur la yidhaahdaa wiil iyo gabadh isguursaday ayaa guur la yidhaahdaa guurku wuxuu leeyahay marka qawaaniin iyo axkaam buu leeyahay gabar uu nin kala qabo ma guursan kartid ma guursan kartaa mid ah eedadaa dhashay mid eedadaa ma guursan kartid habaryartaa ma guursan kartid xaashaa lilah aabbaha xaaskiisa waa hooyadaa ma guursan kartid mase taa iyada lamaba ogolaba ya dhalinyaro taa iyada lamaba ogola miya aabbaha xaaskiisa ma guursan kartid dumaashida gabadha aad qabto wiilasha tusaalaha ku bixinaya gabdho idinkana qiyaasta aabbaha inanta gabadha aad qabto walaasheed immediately ma guursan kartid immediately maxaa laga wadaa intaad walaasheed qabto ma guursan kartid laba lama kulmin karo gabar iyo eedadeed lama kulmin karo gabar iyo habarteed lama kulmin karo laakiin hadday mid meesha ka baxdo ta kale waa la guursan karaa xeerar noocaasoo kale oo dhallinyaradu inay barato oo definitionka qoyska uu noo sheegayaa jira aye yaa su-aal qaba mase waa darsigu waa macayin waan wadaa aniga ilaa iyo salaas wuxuu wadi karaa haddaan raba laakiin inaad ila socoto inaan waxaan rabaa aan idin ogaado inaad ila socon kartaan haa islaamku siduu u qiimeeyey ee guurka dee maxaa ugu filan wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha calaamadaha ilaahay lagu gartuuba guurku ka mid yahay macnaheedu ma hadduusan guur jirin ilaahay ma jiro laakiin guurka markaad u kuur gasho wadaadadu mararka qaar sida loo laqbaynayay aada u khaldaan guurkani iyo sida uu ilaahay u jideeyey marka aad u kuur gasho waxay ku tusinaysaa weeye waxdaaniyada ilaahay jala jalaaluhu waaba aniga hadda idiin sheego waxaan ku idhi khalqiga kaloo dhan waa isu baahan yahay ilaahayna waa keligii maxaa guurkan ilaahay idinkugu jideeyey litaskunuu ilayha dadka homelesska awraysta guri inaad leedahay waa tailit magaciisa home baaba la yidhahdaaba hoy baa la yidhahdaa waa kii ku dumayey marka waa tailit waa meeshaadii xasilooni baad dareemaysaa laakiin marka adoo lacag kasta haysta haddaad raran tahay oo boorsadaadii iyo buustahaadii ay dhabar kugu jiraan oo meeshu gobol kugu dhacaad seexanayso qof degan ma tihid xitaa haddaad marti tahay ma deganid marti haddaad tahay ma deganid laakiin guri adigu aad leedahay markaad degto maasha allah marka litaskunuu ilayha weeye litaskunuu ilayha nabiga wuxuu yidhi yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulba'ata falyatazawaj dhallinyarooy qofkii awoodo inuu guursado ha guursado
raalliga ahaada dhalinyarada gabdhuhuna hadday xishoodana raalli ahaadeen ani markaan guursanayey imisanaan jiray yes ha aha nin baa 17 aha sheekh 20 sano aha aha ayaa gabdhaha wax isku day mid ku jira 16 waxaan u maleynayaa diibilkaan hay abi teledansk haye waa sunna xagga laga yiri maya inta sheegteen oo waxba ka jira laakiin guurku marna waa waajib marna waa sunno muakkad ah marna waa mubaax ama guursa ama ha guursanin tii optidahay marna waa xaraan marna waa karaahiyo laakiin aan isdul taaga wax yar adinkoo raalli ah maxaa laga wadaa guurka in la guursado waa waajib waxaan waa waajib maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa salaada waa waajib baynu hadda u naqaanaa Soomaa waajib waxaa la yiraahdaa waxa haddii aad samaysana ajir aad ka helayso haddii aad ka tagtana lagu ciqaabayo salaadu waa waajib bimacnaa haddaad tukato ajir baad helaysaa waana inaad samaysaa tu iskaal haddaad iska daysana waxaa weeye ciqaab baad ku mudanaysaa marka qofka uu guurka waajib ku yahay waa qofka uu sheegay xadiidkii waa qofka awooda waa qofka naftiisa ay guur u baahan tahay haddana ka baqaya hadduu iska daayo inuu ku dhaco xaaraam xaaraantaas zinadii weyneed bay noqon kartaa meela fiifiiris iyo saqajaannimo kale noqon kartaa qofka awooda inuu guursado wuu awoodaa naftiisuna way rabtaa wuxuu kaloo ka baqayaa hadduusan guursanin in uu fidno ku dhaco qofkaasi inuu guursado waa waajib xadiidka nabigaana sheegay yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj ha guursado falyatazawaj waa amar hadduu nin wiilka noocaasa guursan waayo ama gabadha noocaasa ay guursan weydo way ku dambaabaysaa dembi baa loo qorayaa waa sunno waxaa laga wadaa wax haddaad samayso aad ka helayso ajir haddaad iska daysana aan cidna waxba ku raacanayn laakiin haddaad samayso ajir baad ka helaysaa qofna saasoo kale uu ku yahay waa qofka awooda naftiisuna ay rabto laakiin aan ka baqaynin fidno oo iska adag waa jirtaan culamada qaar waa aan gurigood guursanin baa jira sida alimaam nawowi oo kale ma guursanin laakiin guur kale ayuu sameeyeyoo wuxuu ku mamanaa oo hilib bild uu ka ahaa waxbarashada si wax u akhrinayo ayuu ku dul seexan jiray maantana alimaam nawowi kutubtiisa waa ogtihiin wax walba iyaga ka qiimo badan marka qofka noocaasoo kalea inuu guursado waxay ku tahay sunna sunna maxaan ka wadnaa hadduu guursadona ajir baa laga siin ajir buu ka heli hadduu ka tagana cidna waxu raacan mayso maxaad guursan weyd cidna dhahaysa male ma ciqaab kuma mudanaya yacni looma ciqaabayo guurku waa xaaraan maxaan ka wadnaa karaahiyada waa iska fahmi doontaane waa xaaraan maxaan ka wadnaa mar buu xaaraan noqonayaa waa qofka og in uusan ka soo bixi karin xuquuqda qofka kale lamaanaha ah tusaalayaal aan masaajidka laga sheegin ma sheegi karaa qof baa aidis qaba waa xaaraam qof uusan u sheegin inuu guursado isagoo aidis qaba xaaraam wey qof baa ilaahay dareenkii shahwadaba ilaahay umaba abuurinba af soomaaliga carabi waxa lagu yidhahdaa ciniin af soomaaliga hataa waa ciniin waa qof aan waxba taraynin maa yajuusu sharcan ma banaano inuu gabadh islaameed been u sheego gabarh baa waxay og tahay inaysan gudan karin xaqii uu ninkeeda ku lahaa cillo jirto jirooyin jira halkaa gabdhaha u dhaafi maayo dadka noocaasoo kale inay guursadaan waa xaaraam maa yajuus waa xaaraan markaan leenahay guurku waa guntamayaa laakiin dembi buu ku mudanayaa gabadhuna
hadday ninka raganimadii ay u baahnayd ay ka weydo inay iska fasakhdo xaq bay u leedahay. ninkuna sidoo kale haddii uu wixii uu gabar oga baahnaa uu ka waayo ama ay suroobi waayaan inuu furo xaq buu markaa u leeyahay. inkastoo mar walba furitaanku dee uu caadi yahay, laakiin yani gar buu u leeyahay inuu furo. midna dee waad ku dambaabaysaa oo dee waa xaali xumeyn baa ku raacayso, waaba dee nin si xun yeelay baad noqonaysaa. midna waa gar iyo dowba inaad gabadhaa furto. inaad sabirtood haysatana waad awoodaa. haddii la isu sheego oo ciladaasaa jirta la is yidhaahdo oo sidaa la isku guursado, midda cudurka markii laga reebo inta kale waa la isku haysan karaa. qofka xaqiisa uu ka tanaasuli karaa. qofka xaqiisa uu ka tanaasuli karaa. isaga oo markii la isguursado kadib hadday ciladu timaadana waa la isugu sabri karaa, waana lagu kala tegi karaa. waa arrin basiida, simple, iska fudud weeye. xukunka guurku marka ee karaahiyada xaaraamta u dhowdahay, laakiin waa ninka waxay ku kala duwan yihiin xaaraamta iyo karaahiyada. wuxuu ka shakisan yahay inuu ka soo baxo xuquuqdii, mas-uuliyaddii oo kale matalan. shaki baa oga jira. marka qofka ilaa intaa uu ka soo hagaagay inuu guursado karaahiyay noqonaysa. guurku goormuu waajib yahay waan sheegnay. guurku goormo ayuu sunno yahay waan sheegnay. goormo ayuu karaahiye yahay, goormo ayuu xaaraan yahay, intaba waan sheegnay. guurku maadaama uu cibaado yahay, tan mubaaxa waan iska daynay. laanna mar walba waa cibaado mubaax iyo mubaax la-aan ma kala lahaa. oo hadda cunto la cunaya maaha, wixii waa waxaad adigu samaynaysa weeye. maxaa loo guursadaa? haye mid iyo labo. qof walba waxa loo guursado, weliba dhallinyarada aan guursanin inay hadasho way fiican tahay. maxaa loo guursadaa? sheekh, in caruur la helo, haye aabba la noqdo. haye sheekh, baahi maxay ah? baahidii aan la sheegi karin miyaa? haye yani shahwo. haye haye caruur waan gartay iyo baahi ku cesho sheekh adeer. diin nabigaa sameeyey. sheekh adna iyo mustaqbal. laba nin baa ku noqonaysa. waa maxay labadaa nin baa guur rabta miya? haye afar commenti oo fiican baa la sameeyey. laba nin baa kuna noqotay. haye gabdha, haye inaad wiilasha uga hormartaan weeya mawduucaas. haye sheekh, dhowrsoonaan. haye sheekh, waa cibaado. waa diin. dhegeysa marka. kow intaad sheegteenba waa sax, jazaakum allahu khayran. labadaas sheekh waa uga mahad celinayaa ka qayb qaadashada ka qayb qaateen. waxaa loo guursadaa, diinta ayaa ifartay in la guursado. nabi maxamed baa wuxuu yidhi, yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulba'ata falyatazawaj. marka nebi maxamed ma dheenishka gaaladu la hadlayay? ya haddaan idhahda ka warran muslim baana, nebi maxamedna waan jeclahay, oo yaa aliigleda fahansee haddaan dhaa ka warran. nin baa wuxuu u guursanayaa waxoo dhanba waxaa kala muhiimsan. nebi maxamed baa wuxuu yidhi, yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulba'ata falyatazawaj. guurku waa wadadii ambiyada. waa annaga maanta hor ka soo sheekaynaynay. wamaa arsalnaa qablaka min rasuulin oo islaameed. intaad been u sheegto tirahda mas-uul baan ka ahay, alrijaalu qawaamuuna cala annisaai, macnaheedu waa maxay? hadhow sheego dee walaal sidan ma aha, dee caynkan maaha. midda kale waa la iscaawiyaa oo dee maalinka arooska axkaamba ma jirtaba. waa shahrul casalka, ninba marbuu cuntada soo gurtaa. halkana dee waaba ka jirtaa oo jikadu waa loo siman yahay. ilan balaayo af lagama dhowree, soo saas ma aha. jikadu waa loo siman yahay sheekh. marka guurku waa mas-uuliyad. guurku shahwo ma aha. guurku gabadh baan ma iska jeclaaday maaha, ama wiil baan iska jeclaaday. guurku waa mas-uuliyad. gabadhuna waa inay ogaataa siduu reerkeedu ku guulaysan lahaa, wiilkuna waa inuu ogaadaa siduu reerkiisa uu ku guulaysan lahaa. waa in la isgarab qabtaa, waa in la tashadaa, waa in la isu sabraa, waa in la isu dulqaataa. wariyahan caanka ee cabdisalaan hareriyon maalin su-aal weydiinayey baa wuxuu igu yidhi, guurka maya aniga ma nin kalaa weydiiyey. waxaa lagu yidhi guurka bal ka waran, bal hal erey ka dheh. markaasuu yidhi hala isu dulqaato. waa runtii, hala isu dulqaato, hala isu dulqaato. guurku waa mas-uuliyad. guurku waa in nolosha la isu huro. waa in nolosha la isu huro. nolosha la isu huro maxaa laga wadaa? haye
إن الله الله يسوره محل جوضا يعني إن ليسوا تنازله إن يعني وقت ما حل أسيح الله إن تصاحب كاسيسو زوج كذا أسيسو زوجة كذا أسيسو إن حولا أديك كلي أكوف الله إن هذا حكاسيسو يعني وإن تضحية ليسوا سمية يعني ترى هذا قف كان درادس بوحنا سمينا يا نفط إن الصورة وين جور كوا إن لا أقبلك كلا دونا شه قل يا أهل المنطق وحير هذان هدايسن كلا دونا شه تشير الهين الله بني ما نمشرتين هدونك صاد سوسديل مليار يحلم يرادو تذكرنا هذا يسكوا من نقول الله ينكور تذكرنا هذا يسكوا من نقول الله ينكور رما يا dee lababa in la isguursado markaa muhiim ma ahaateen nin walba meeshiisu iska joogi lahaa ilaan qofkan aad soo guursanaysa waaba adigoo kale maxaad adigu waad naftaadi waad haysataa maxaad ku falaysaa marka waa in kala duwanaanshaha la aqbalo weeye oo qof weyn oo reero soo korsadeen oo reero la soo koray ama nin weyn ama gabar weyn baa kuu imanaysa dabeecadiisu wataa rabitaankiisuu leeyahay ikhtiyaarkiisuu leeyahay sunis fingilkiisuu leeyahay waa in kala duwanaanshaha la aqbalo weeye kala duwanaanshaha in la aqbalo weeye waa ceeb in qofka la yidhaahdo matalan markuu qof weyn oo reero yani gabadh ay niman kale soo shukaansan jireen oo adiga lagaaga horreeyey laga yaabo oo xiriir cid walban leh ninkan ku soo waca yuu yahay dee waa ragga walbana soo wici jiro inaan guursadaan ogeyn marka maxaa loo soo wacayaa iyo sidoo kale waa extiisii hore iyo waa extiisii hore waxaas wax ka jira male qofkan ex wuu leeyahay waxa qof aan lahayna waa yar yahay marka waxaasoo dhan waa in xuduud loo yeelo weeye oo laga daaya mala yacniga laga daayo xiriirka iyo xodxodashada qaabka loo xiriirayo hadda shay ma filayaa qaabka xodxodashada xodxodasho horta waxaa la yidhaahdaa xoodaamin ma taqaanaan dhalinyaro xodxodasho ma taqaanaan ya xoodaamin aslaan qofka markii neefka markii la sasabayaa la yidhahdaa neef iyo dad isku mid maaha laakiin ereyga asalkiisa meeshu ka soo jeedo waxaan markii la xoodaaminayo waa la sasabayaa oo tartiibbaa qofka saa loo salsalaaxayaa marka qofka markaad sasabanayso qofka markaad ku qancinayso inuu nolosha kula wadaago markaad xiriirka la samaynayso shukaansidhe hasaawadhe arrinkaas way arrinkan ka hadlayno arrinkaasi waa in ilaahay looga baqaa dhalinyaradu ilaahay in badan oo ka mid ilaahay kama baqayso waa in ilaahay looga baqaa waa in xuduudda la ilaaliyaa waa in kelmadda jilicsan la iska ilaaliyaa waa in beenta la iska ilaaliyaa beenta waa in la iska ilaaliyaa lama ogola beenta ma qasab ma inaad wax walba ka jawaabto laakiin haddaad jawaabaysa been ha ku jawaabin laakiin waxaad tidhahdaa yaa velikisba there is possible qofku kuu qadarinaya kuuna qiimaynaya heerar kala duwan buu maraa heerka moolintaa jirta gabdhuhuna aad soo ilaaliyeen gabdho may maqashaan heerka moolinta gabadhu ama gabdhaha ku badan maasha Allah gabdhaha meeshaas aad uga ah dugti uga ah ninkani wayba moolinayaan aad bay cajab gelisay gabadh joogta Nairobi ayaa ila wadaagtay ninkaygaan moolinaya moolin waxaa la yidhahdaa moolin ma garanaysaan Soomaaliga waa weyn moolinta waxaa la yidhaahdaa shaygani intuu qodan yahay inaad qiyaasi karto yani biyaha meeshan yaalla biyahan ma halkan ay ku laqayaan ma intan ay ku laqayaan inaad yani inay diib tahay in kale inaad ogaataa rabtaa marka diib u ogaashaha heerka la yidhaahdaa jira waa qofkani intuu qodan yahay qofka uu yahay person lihdiisaad moolinaysaa marka ayada waxaa la sameeyaa intaan ballan adag la gelin intaan gurba lagu heshiinin marka gabadhana ay cajab gelisay gabadhan dhagaysta gabadhani waxay tidhi anu ninka waxaan ka fiirinaya tiri salaada waxaan sameeyaa bay tiri anu gabar baan ay gurigan jooga masaajidku ma tukado xilliga ay salaadu ka hadhay 2 daqiiqo baan telefoon u diraa bay tiri dharrag salaadii markay 2 daqiiqo ka hadhay salaada jamaacada inta badanna dee Soomaaliya iyo Afrika iyo masaajida lagu tukadaa meeshan oo kale xoogay silca ma marka baan telefoon u diraa bay tiri dharrag haye hal maalin waa u dulqaataa markaan arka maalin walba isaga oo nus saac hadlaya hal saac hadlayo salaadiiba dan kala hayn dibna ayna ku haynin wax dambaba lama sii wadaagin bay tiri cancel baan meesha ku saaray waxaan ku yiri bay tiri sheekh salaadun iska sax gabadhaas oo daaciyad ma hayn
ما شاء الله بيت مركا وإن ليس موليا قفك إنه ديقسي هي إنه قعن أدقي هي إنه عرب بدن هي إنه كلا دونا شها أقبليه إنه الديالوج أقبليه إنه تحقلني أركتي قفك كلا وقفك والأوغان كرا هذول بلن قادم بالأوغان كرتا هيرك مولين تالي ذاكاس هيرك حد الشدنا وأنا ترى أنو قبرنا عاصان ربا قبرنا ترى أنو عاصان ربا عينك إن مركز لسكوسو دوادوي هيرك إسفهنك مركي النبر إن الله وقف وإسلات شان قاضي كرتاتهين مركا كدب وإن آد كوض هذا الشان الرميه كله هيرك قرشينتا نحاد نرشك أمين سنتهاي محاد مع سنتهاي محاد كنت لقى شنتهاي نورش محاد كأمين سنتهاي ورياضة هل صعب إنه هذا إنه يا وايه هيرك قرشينتا يعني حقيقة بتاعنا تكون نولاتو محاد مع سنتهاي ما يقي الماء دوني سينا هذه إلهي الماء بالنسيين دشوا إن محاد دوني سينا تكون تخصصته وحبر الشد هذا وحيابها صدًا قفك عاد نور عاد سكان عاد هذا أنت كب حكرته علماء قاروا حكوفة السرين ما إيه نين كاني وإنه يهي أرنتي جوجش يسرير كان نين سماين كره إنه يهي قاربا كوفة السرين لابد ضب اسكودر لب ماله ولا اسكودرها نين أرنتي سرير تنا سماين كره أما جبر أرنتي سرير تين لو سماه يدي أروى إيو إنه بيلكي يجوريجي يأرد بحي أما دركي يمهركي يأكبح كره وي نيجو قوس دعان كره جبن نيمو رجع حاجة دومر كلا ترصده oo markay hal taadaba 10 eray ku yiraahdo waa khalad weyn waliba waa khalad dumar iiga waran buu yiri ninkii dumar iiga waran markaas yiri ideedana si afkaadana ka hayso waxay u baahan tahayna si af hadalkana ka yaree markaas yiri iguma filla labada cirgudood ninka la tirsadaa iga yaqaanay weydii buu ku yiri aroortii hadaadan chaq maanta oo dhan waxaa la soo ogaaday psychology ahaan gabadhu waaga markuu bariyo inay u baahan tahay 16,000 oo eray inay afkeeda ka soo baxaan 16,000 oo eray raggana 5,000 markay ka dhamaato ragga de nervous buu noqon naga aamus buu marka dambe allah hadu allaye marka hore de is agjoogaba nin reer miyiga yagii ah baa xamar yimid wiilashu dhalay baa maaratay dawladii u shaqeyn jiray markaasuu wiilkiisi baa soo qaaday gaari ku soo qaadayo inuu guursado rabay wiilkan xamar loogu imanayo madaxda ah marka ninkana oo guursanayo nimankii marka sameynayay alaabta sameynayay ayuu u yimid markaasuu wuxuu arkay sariirtan laba dabalka ah labada nafar qaada oo looxeedii la sameynayo arkay sida markaasuu wuxuu mooday qabaal geela lagu shubi doono ayuu mooday wuxuu yiri war waxani muxuu ahaa waa sariir والسرير ما يتنا جيل يجي ميجي يكون في عندنا القبائل أقدر جنة محل وقص ما ينام مركز على والسرير تلقوا سيحنا يبير ويا قص سيحنا يا تاني إسلام أنا إسلام تقص عندهم محل كان هذا إسلام تبي أقول ما كان بدأ جريسان ما قبائل كان انتو يا بي أوح وكه الله جرم ويوح يري ما نينك هبين والبقبائل كان إسلام كله تشير رجع نبى لجسوي يعيد من إنه إسلام حقبته marka hadda reer miyigu de waa xaq jirnimo kale ka hadli maayo laakiin waxaan aniga ka faa'iiday is agjoogan badan iyo dumar kasta loogu agmeemeereysanayo iyo ninku inuu noqdo islaamo shaneeye naga shaneeye inuu noqdo sax ma aha in la isu soo xiisoodaa la rabaa in la kala shaqo tagaa la rabaa in inta yar la isla joogo yani wax wanaagsan laga wada hadlaa la doonayaa laakiin maanta oo dhan in dumarka lala tirsado sax ma aha hadal badnidan iyo wixigan hadee waa kala duwanaanshihi baa laga yaabaa niman hadal badanna waa jiraan marka ninku waxaa la rabaa inuu xaaskiisa qiimeeyo inuu u sabro inuu u dulqaato la doonaya dhaqan wanaag na waad ku dooranaysaa ninkan tiirarka meherka mar walba waa dadajinayaa baan dhahaa laakiin danna waa uniga tiirarka arkaanul meher markii la isdoorto waa in la ismehersadaa soo maaha waxaa loo baahan yahay lamaano labadii qof ee isguursanaysay waa nin iyo naagtii iyo maaragtay
isgeeyey isguursan karay labadaa qof markii la helo guri waa la samayn karaa weli gabadhii aabbaheed ama walaalkeed ama ninkii walaayadeeda hayay mana aha mid la iska doordooranaya way kala yihiin gabadha aabbaheed awowgeed walaalkeed haakadaa saas u tartiibsan yihiin labo gabdhuhuna marka la leeyahay waa in weligeeda uu jooga marka gabadhu la guurinayo ninkan unbaa lagula eegayaa ninkan ayaa lagula eegayaa hadhow markii ay hadduu ku dhibo laa saamax allah dee waa inay rag wada xaajoodaan rag inay wada xaajoodaan baa la doonayaa marka qisas badan oon hayaa jiro ood aada ugu qosleydeen laakiin waa ka soconaynaa laba markhaati waa in la helaa mid walbana adilay leedahay codsi iyo ogolaasho gabadhaydii waan kuu meheriyey sidaan maanta soo samaynay war weliba hadda maanta sida loo sameeyey si kaley ahayd oo ninkiiba wuxuu yidhi adeerow gabadhaadaan doonayaa waan kuu meheriyo waan ku siiyey meherkii waa dhan yahay laakiin soomaalidu waxaa kale indho kale samaysaa yani waxaan kuu meheriyey inantaydii baan kuu meheriyey ma aqbashay waan aqbalay waanu dhahaa sidii maanta la sameeyey waa sax waa si iyadana dhici karta oo waa maxay ninkiibaa wuxuu dhihi adeero sodogii buu la hadlayaa ama ninkii walaayadiisa adeero waxaan kaa codsanayaa inaad ii guuriso inantaada waan kuu guuriyey bes waa dhammaatay gabadhaas waa mehersanta arkaanta meherkii laydiin sheegay waa intaa hadhow waxaa la rabaa inaad dhalinyaro aad idinku gabdhaha guurin kartaan baa la rabaa maxay ahayd iyo waa la isisiray iyo gabdho idinna yaa la idin sirin intan waa in lasoo maraa intan in lasoo maro weeye ma dhamaatayba haye gebagabadii iyo gunaanadkii waxaa ii harsanaa runtii waaba iska daynayna kaas khilaafka iyo sida loo xaliyey iyo oo cutub dhan baa ii harsanaa waxaa kaloo ii harsanaa insha allahu in aan maxaa la yidhaahdaa waxyar raalli ahaada xulashada lamaanaha waan sheegnay xeerka doonista xafladda meherka xuquuqda lamaanuhu isku leeyihiin xuquuqda ay lamaanuhu isku leeyihiin marka lasoo gaabiyo waxaa weeye ninka waxaa lagu leeyahay intii aan sheegnay waa meher waa guri waa biil waa dhar waxaa kaloo lagu leeyahay mucaashara dhaqan wanaagsan ad adayga badan iyo looma baahna ninkuna wuxuu xaaskiisa uu ku leeyahay inay maqasho inay ateecdo warkiisa ateecdo oo ay qaraarka kama dambaysta ay u dayso ayay ku leedahay annaga islaamnimaan ka hadlaynaa islaamnimaduna baryo ma aha cid loo soo barbaryo saas yeela war muslimiin saas yeela waa islaamkii sidaasuu yiri waadna ku khasbantahay inaad samayso xuquuq kaloo waxaa jirta ay isku leeyihiin oo wanaagga iyo ixtiraamka iyo kalsoonida iyo waxyaabaha noocaas o kalea mar waxaa loo qaybiyaa xuquuq la taaban karo sida guriga iyo biilka iyo meherka iyo xuquuq aan la taaban karin oo macnawiyaadka sida in la ixtiraamo gabadha sida in la sharfo sida aan saaxiibadeed gabadha inaanan loo jebinin oo aan xumaanteeda banaanka loo saarin oo aan laga dacwoonin oo reerku waa xidide uu arrinkiisa u asturnaado oo aan lasoo xumaanta banaanka loo soo dhigin waxaasoo dhan waa xuquuqda aan la taaban karin weeye xafladda meherka ilaahay ha laga baqo waa tii hadda la sheegayey war dumarow ilaahay ka baqa war ragow ilaahay ka baqa war guurka hala fududeeyo war nebi maxamed wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam gabarhba gabadhay ka qarash yar tahay bay ka baraka badan tahay gabdhaheennuna halkanay ku dhasheen waxaanaan akrinaynana ma yaqaanaan kharashkan badanna ma yaqaanaan yaynan sabab ugu noqonin inay ubadkeennu naga fahmaan in diintan islaamka aan annagu si khaldan ugu dhaqmayno ficlanna waa khalad baan ugu dhaqmaynaa meherka haddii kor loo qaado kharashka haddii kor loo qaado tumashadan iyo durbaanadan iyo balaayadan haddii maaragtay aqalkii lagu bilaabo hadhowna ma odhan karno gabar yahay ninkaada maqal gabar yahay sidan yeel gabar yahay ilaahay ka baq waxaa kugu filan aduu ilahay maad ka baqdid markaad waxaanoo xoolaad khasaarinaysa marka anigu waan ogahay hooyo kasta hadda madaxay gundhinaysaa waa sax bay leedahay laakiin mid walba waxay leedahay markii inanteeda la guursadaan bilaabi inanteeda markii la geeyo
oo wadadii hore la mariyo marka kale hala bilaabo hadee muddo dheer baana ku jirnaa hadda 40 sano la joogaa qurbaha marka xafladaas guurkan ilaahay looga boqo boqolaalkan kun ee meesha maalinka looga soo tagayo sax ma aha waxa fiican in si kale masaakiinta dad badan oo isguursaday waxaan garanayaa ujeedadoodu dhan ay ahayd $10,000 ii keen $5,000 ii keen $2,000 ii keen waxa weeye agoomo meel jooga ayaan biilkooda ka dhigayaa bil dhan markaasaan dhahay ii soo duceeye Allahu akbar xera agoon baan ku daraya waxaan leeyahay gurigeyga iyo sharaf iyo waa loo baahan yahay durbaan iyo alalaas waa loo baahan yahay farxad waa loo baahan yahay laakiin intaan hool weyn intaan soo kiraysto aan maanta iyo cunto dad aan gaajaysnayn anaga maanta hilibna la siiyay waad arkayseen laakiin hilib waa iska haysanay cunto laakiin agoon waxaa jirta waxay cuntaan haysanin dad masaakiin oo wax cunaan haysanin wala kala aqli badan yahay marka gabdhaha qaar saa u fakaraa jira oo wixii kharash ku bixi lahaa agoon baahan oo boga dhulka ku haysa wax ka siyaa jira hal ugu dadaa arrinkaas xeerka lamaanaha iyo xalinta khilaafka mar kale insha Allah isu keeno